daawada haddii aadan arkinin horey aadan u arkinin qof reerkiisii oo corona intuu ku dhacay halis uu geliyey wejigiisa waa wejigan haatan idin muuqda waxaan idinkaga dhacayaa videogan haddii ilaah yidhaahda daqiiqadaha kooban aan jecel inaan kusoo koobo kadib markii go'an anigu aan qaatay uu halis geliyey qofkii dadkii iigu dhowaa oo ah xaaska iyo ciyaalka 26 sano ayaa noloshooda wadaagaynay go'aan anigu aan qaatay oo khaldanaa ayaa nafteedii halis u gashay waxaan rabaa inaan inka dabageeyo aana markaas insha allahu tacaala darsi aanu ka baranno qaybaha dambana digniin adag ayaan hawada idiin soo marinaya daawade waxa dhacday in aan ka mid ahay waxaa jirta inaan ka mid ahay dad fara badan oo dunida jooga oo walwalka qaba aanna qaadanin talaalka caabuqa covid-19 markii ugu dambeysay oo la talaalo waxay ahayd gabagabadii 1978kii timira biyaha kulul way karkarisaa dadkiina waaweyn waa garanaysaan talaal markaas jadeecada laga talaali jiray ayuu ahaa halkaa gacanta dadka laga talaali jiray haddaba waxa dhacday in aan la talaalinin go'aankana anigu aan qaatay kadib markii aan qoraallo fara badan akhriyey aanna arkay doodo fara badan oo iska soo horjeeda waxaan nafteyda ku qanciyay sida dad fara badan weli dhallinyaraa tahay difaaca jirkaagu wuu adag yahay uma baahnid inaad qaadatid covid-19 and generally ilaahay mahada ka gaadhe dadka caafimaadka qaba ayaan ku jira daawada waxaa dhacday haddaba reerka qaar ka mid ah in aysan istalaalinin go'aankaygii iyo aniga oo saameyn ku yeeshay go'aanka ayagoo qaateen inkastoo ayagu ay rabeen istalaalaan haddana aniga ayaa hor istaagay oo mar walba lahaa ukaadi arrintaas aad baan uga shalaayay waa dhibsaday waxayna igu dhalisay in aan videogan idinla wadaago you see reerku waa laba qaybood qaar talaalan iyo qaar aan talaalnayn kuwa aan talaalnayn aniga ayaa mas-uul ka ahaa inaysan istalaalinin waa aniga nafteyda waa wasiirka arrimaha gudaha iyo nin weyn oo 22 jir ah iyo tan reerka ugu yar oo ayadu markaas 12 sano hadda gabagaba ay u tahay una socota inay 13 sano gaadha allaha barakeeya dr amatullah ood aragteen badankiina ayadu inta badan ila sawiran waa qofka keliya dunida ugu jeclahay ilaahay subxaana watacaala intaana ubadka haystana allah u daayo intaan ubadka haysana allah subxaana watacaala ubad khayr qaba siiyo saalixiin ha nooga dhigo kulligeen waaya daawada waxaa dhacday in 3 ka mida gabdhaha ay talaalan yihiin waxayna ku gacan sayreen taladaydii iyo go'aankii odayga ilaahay baan uga mahad celinayaa in aysan taladayda qaadanin oo maanta waxaa nagu dhacay ayagoo ay ka badbaadeen siday wax u dhaceen iga hooya waxaa jirta 3 gabdhood oo gabdhaha carruurteena ka mid ah ama carruurteena ka mid ah iraahdee ayaa waxay sameeyeen mid waxay qaadatay 2 talaal labada kalena min 1 talaal bay qaateen kii kalena weli way sugayaan tii 2 talaal qabtay ayaa waxay noqotay qofkii ugu horreeyey oo xanuunkan uu soo rito anigoon cidna u sheegin baa niyadda iska qanciyey haddii iyadoo talaal qabto uu ku dhacayo maxaad isku talaalaysaa waxay ii noqotay arrin kale oo markaas go'aankaygii aan qaatay si yara naxaysa laakiin I couldn't be more wrong dib baad ka ogaan doontaan symptomskeeda ama xanuunka siduu u saameeyey waxay ahayd inuu urkiina ka tegey isla mar ahaantaana dhadhankii uu ka tegey xumad ma lahan qufac ma lahan naqas wuu ku dhegaya ma lahan dhidid ma lahan dhaxan ma lahan oo lafa xanuun ma wato sida xanuunkan lagu yaqaanaba waxaasoo dhan ma aysan lahayn waxaanu samaynay go'aan baan qaadanay ka qoys ahaan inaan isolation gelino oo markaa aanu maqsin ku xirno si aysan dadka kale ugu gudbinin si kastaba ha ahaatee maalin dhaaf ayaanu u test garaynaynay maalin iyo habeen baan ku lahayn see tahay xaaladaada ka waran and she was being able to give us maxaa la dhahaa in details xaaladeedu siday tahay comfortable baa noqonay inay soo raraanayso maalin walbaba haddana saan moodaynay inuusan xanuunku u soo ridanin oo markaas aysan u dhiganuglaanin ayaa dhacday 8 maalmood 7 maalmood 6 maalmood kadib haddana waxaan ka qaadi jirnay maalin dhaaf test baan ka qaadi jirnay maalintii dambe ilaa aanu dhowr jeer markaan ku celcelinay 2 maalmood u dambeysay aanu ogaanay inay negative tahay symptom ma lahan kale xanuun kale ma hayo cuntada ayaanu dhadhamaynin iyo urkii oo ka tagtay basal baan jarjarnay ursiya karaan samaynay ursiya wax walba oon isleenahay way adkaayeen urkoodu
ama siifad bay lahaayeen madaxay ka ruxday uma dhadhamayn mana uma uraynin laakiin intaa keliya un bay ahayd ayadii hadday soo roonaatay oo aan alxamdulilah niri xaaladuna meel fiican ay noo marayso wasiirkii arrimaha gudaha ayuu xanuunkii ku dhacay oo aan tallaalnayn xasuusnow in badan bay tiri waa istallaalayaa aniga ku ilaha tala istallaalay markay ayadu soo dhacday waxaan islahaa sidii dhalinyaro kale way ka badbaadaysaa laakiin xaaladeedu khatar ayay gashay waxaana dhacday hameen iyo maalin qofa aan kala joogsanaynin oo aad is leedahay waxa uurkeeda ku jiro dhan bay bannaanka usoo baxaan oo kaa welwelinaya kaana nixinaya waxaadna ogaataa aabaha soomaaliyeedow aadna ogtahay aan ku xasuusiyaan iraade markii wasiirka arrimaha guduhu uu kaa xanuunsado guriga korontada ka tagta waa the power engineka guriga daaro wey guri aan gabar soomaaliyeed joogin koronta kama daarna naa waxaan rabaa haddaad adigu islaan ajnabi qabto anuu kama hadlayo gurigaaga iyo waa dansiyaha kumali waxaan ka hadlayaa my personal experience iyo odayaasha anigoo kala oo ifahmaya waxaan ka hadlaya ayaan la hadlaya naa waxa dhacday saaxiibayaal waxba yaaran war idinku daalinin wasiirkii arrimaha gudaha xaaladiisu khatar bay gaadhay haddii wejigayga ay idinkaga muuqato daal fara badan hurdo la'aan walwal fara badan waxa weeye waa arrintii aan soo marnay weeye maalmihii lasoo dhaafay ee aadka u adka waxa dhacday haddaba anigoo tii la daalaa dhacaya oo markii wasiirka arrimaha gudaha uu xanuunsaday waxa dhacaysa hawshii guriga iyo tii dabadaba odayga kusoo dhacayaan marka you try your best to be multitask so wax karin waa wax nadiifin waa caruur ka shaqayn waa hawl adduun oo dhan wey wax walba aday kugu soo dhacayaan maxaa yeelay garabkaagii midig ayaa meesha ka baxay arrintaas walwal fara badan ayay igu haysay oo gaar ah marka laba walwal baa haya laba xanuun baan haya mid waa kan ayada haya oo anigu aan la daqranayo iyo inaan go'aankan anigu aan lahaa maxaa yeelay waxaan arkay tii gabadhii inanteeni weynayd siday uga badbaadiyay maxaa yeelay way mudnayd ama waa la talaalay go'aankaygii ayaa wuxuu noqday mid isagu dib iyo cuna oo aniga weerar igu soo qaada laakiin waxaanan ogeyn in weerarku intaan kasii adkaan doono xaaladuna ay halis gaariga doonto halkaa annaga oo marayna ayaa waxaa dhacday in uu xanuunkii uu ka qaado wiilka inan yaran dhalnay inuu xanuunkii hooyadii ka qaado oo asaguna ka mid ahaa dadkii aan tallaalnayn labadoodii ayaa soo dhacay I can tell you honestly markaan idinla hadlo markii wasiirkii arrimaha gudahu uu korontadii guriga ay ka tagto ay xanuunsan tahay taa hayso oo qofa uusan kala joogsanayn wiilkaagii yarka ahaana uu ku yidhaahdo aabba naqaskaa igu dhegan oo ma hadli karo arrintaasu xiniya iska taabasho meeshii u dambeysay wey and that is why aan videoga inaan idinla wadaago oo go'aankii shalay aan qaatay ee khaldanaa aan dib uga noqdo igu kaliftay si adinku go'aankii khaldanaa oon qaatay inaan u qaadanin ama hadduu idinku jiray ama aad ka shakisanadin inaad talaalka qaadataan aad markaas go'aankaas go'aan ka duwanaa qaadataan maxaa yeelay waxaan idinla jecelahay wanaagga caafimaadka horumarka iyo dadkayga soomaalida ah in ay caafimaadkoodu uu mid sarreeya noqdo ilaahay baa og idinkuna waad ogtihiin intiina si fiican ii taqaana waaya aabba xaaladaadu waase gabadha yarta ah oo asaga ka yar si fiican bay kugu sharaxaysaa say waxu hayaan asagu waa nin kuu sharaxi maayo waa fiicana I'm not feeling well erayo kooban oo iska taqaanaa nimanku say u hadlaan hadalkiina kuma adkeyn karto wixii ii fasir ma dhihi karto waa xanuunsan yahay giltiga anigu aan dareemayo ah in xaaladda uu ku sugan yahay aan qayb ka ahaa iyo xanuunkiisii iyo xaaskiioo taalla iyo asagiion wax badan kuu sharaxaynin iyo naqiskiioo ku dhegay can you imagine it's very hard wallahi it's hard calaa kulli xaal khiyaaray waxa dhacday aan waxa war idinku daalinin habeenii maalin waa soo jeed waa albaabka qolkiisa taagnow waa xaaladiisa ka warqab waa hoos soo dego gabadhii ka warqab xaaskii waa hooye aaba gurigii ka noqo hawl adduun oo cajiib ah ay ahayd xaqiiqatan waxba yaana war idinku daalinin annagoo halkaa marayna ayaa mid yar ah oo 16 jir ah
oo ayadana sidaasoo kalena aad u jeclahay allaha barakeeya caisho la yidhaahdo ayaa xanuunkii ku dhacay ayadu waa tallaalan tahay waxayna ahayd qofkii u dambeeyey oo gurigeena isoo tallaala oo go'aankaygii ku gacan saydha si fiican u dhegeyso intaan ku iri ha istallaalin bay inta tagtay bay issoo tallaashay ilaahay ayaa uga mahadcelinayaa inuu ku hagaajiyey inay istallaasho oo aabba gacankiisii ay diido meesha hooyo iyo inankii weynaa ay iga ogolaadeen oo maanta naftoodii halis ay gashay saaxiibayaal waxba yaanan war inku daalin tii yareyd ayaa soo dhacday tii yareyd symptomskeedu wuxuu noqday qufac ma leh naqas ku dhega ma lahan orkii iyo waxaa ka tegay oo keliya iyo dhadhankii mararka qaarkoodna waxay igu lahayd sanku inuu caburan yahay ayaan dareemayaa which is not bad thing compared to labada kale waxa ku dhacay maqsin baa ayadii ku xirnay soo xaaskii maqsin baan ku xirnay inankii maqsin baan ku xirnay tiyada maqsin baan ku xirnay waxaa soo haray aniga iyo 4 gabdhood oo yar yar ah oo tan ugu yar 12 jir ay tahay oo reerka ugu yar inteenaas negative baan nahay waxaa marka dhacday maadaama aan negative nahay inteeni inaan isku maqsin seexano si kuwa kale aanan ugu dhowaanin so marka hurda ma jirto xaqiiqatan ayagoo iskaba seexdaan laakiin odaygu waa ujeedaan dhiisa ka garanaysaan week iyo barkii lasoo dhaafay saacado kooban unbaan seexanayn oo weliba maalintii u badan maxaa yeelay hameenkii dhegtaa kuu taagan walwal baa ku jirta I don't want you to go through that because it's really really tough to cope with now saaxiibayaal waxaa dhacday waxaa ii caddaaday hameen iyo maalin bay ii kala noqotay kuwii tallaalnaa xanuun fara badan ma hayo symptomskoodu waa very minimum kuwii aan tallaalnayn anigu aan sababta u noqdanaysan tallaalin xaaladoodu halis bay gaadhay haddii aad hadalkayga dib u dhuuxdaan waxaan idinkugu macneeyey guriga markay xaasku xanuunsato hooyadu xanuunsato waa power enginekii guriga power enginku markuu kaa damo you almost non-existent taas anigoo la daalaadhacayay ayaa wiilkii haddana soo dhacay haddana gabadha yarayd baa ku xigtay aniga iyo kuwii kale waxaanu ku jirnaa dhufays guriga dhexdiisa oo quarantine baan isgelinay gurigii hooye aabbaanaa ka noqday waana ku faraxsanahay waxaana aaminsanahay aabba haddaa tahay you have to be hands on I don't believe in part-time fathers I don't believe in aabba carruurtiisii reerkiisa ka maqan and I'm not judging nobody laakiin waxaan ka hadlayaa aniga iyo sidaan u noolahay anigu waxaan aaminsanahay aabbuhu inuu noqdo hands on well domesticated haddaad rabtid baad dhihi kartaa fariiskan soo isticmaali kartaa oo nadiifinaya oo ka warqabaya iskuulkoodii inkastoo iskuulkii noo xiran yahay waxbarashadoodii ka warqabaya oo dabagelaya ma ahan waxaan ku ammaananahay marka aad carruur dhashid waxyaalaha aad ama guursatid aad ubadna ilaahay ka rajaynayso inuu ku siiyo waa waxyaalaha basiga ah oo loo baahan yahay qofku inuu kasoo baxo intii karaankiisa ah wax badan baan ka gaabinay laakiin I believe in fathers should be hands-on 100%. Imagine haddaana joogi lahayn imagine haddaan siyaasadda ka tirsanaan lahaa Soomaaliya imagine haddii aan ganacsi meel ugu maqnaan lahaa imagine haddaan noqon lahaa mid islaan yaroo kale inta guursaday geed dushii la fuulay kuwaana dayacay so many other things nin kastoo qof gabar guursadaan oo gabar kale ma dayaco macnaheedu saas maa laakiin waxaan ka wadaa haddaadan jooginin way kala duwanaan lahayd aad iyo aad bay u kala duwanaan lahayd calaa kulli xaal saaxiibayaal waxbayaanan war idinku daalinin intii tallaalka qaadatay kulligood way ka badbaadeen labadii tallaalka qaadatay xanuunkii saamayn fara badan kuma yeelanin waa negative labadoodiiba haatan xaaskii iyo wiilkii labadooda oo aan tallaalka qaadanin xaaladoodu waxay gaadhay qaabo qawsayn iyo meel halisa waxaan idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan idinku dhiirigelinayaa tagida tallaalka gabadhaa yartaa oo igu gacan saydhay ilaahay baa mahad iska leh ma ahayn aabbaheed caasi ma islahayn laakiin ilaahay baa ku hagaajiyey waxayna u dhaganmugneed waxaan ana oday weyn oo reemiya ahay oo dadkan ajnabiga iyo waxyaalahooda mararka qaarkood ka shakiya shakigaasuna wuxuu ahaa mid khalad ah baseless ah scientific aan ku salaysnayn just misconception iyo waxaa maqlay iyo waxaa akhriyey iyo dadka soo horjeeda iyo maaragtay talooyinkooda ahayd haddaan dhakhtar abshir taladiisa qaadan lahaa
haddaan Dr. Liibaan qaadan lahaa taladiisa aan qaadan lahaa Dr. Samira oo hadda kahor barnaamijkan ka wada qayb qaadanay dadkaas oo dhan waa medical professionals they knew waxay ka hadlayeen wayna iga saxsanayeen aniguna waa khaldanahay saaxiibayaal xaaladda hadda reerku waxay tahay xaaskii way soo ficnaatay mahad ilaahay ka gaadho inankii yarka ahaa ee naqasku ku dheganaa ee walwalka iyo walbahaarka igu hayay habeenii maalin wuu soo rooraanayaa weli isolation baan ku jirnaa wax allaala wixii ballamo iyo appointmento aan lahaa muhiim ahaa oo dhan waa kansalay waxaana u kansalay xanuunka reerka ku dhacay inaan anigu qof kale u gudbinin waxaana go-aan ku gaarnay marka xanuunka uu negative naga wada noqdo kulligeen anigu hadda negative baan idinla hadlaya iyo qaar kale guriga jooga in aanu inteena talaalka hore halka ama labada u qaadatayna boost ay sameeyaan halka talaalo u dhiman ay qaataan anigaan idinla hadlayaan aan istalaalo xaaska talaalno inanka talaalno get the vaccinationka get it today don't wait tomorrow because it could be life and death situation haddii videogan aad ka heshay waxaan ka hadlaya ama saameyn uu kugu yeeshay waxaan kaa codsanaynaa in aad ka noqotid dadka nagu xiran channelkan Brit Somali TV haddii ilaha yidhaahdo weli cabdifataax cali shiro waxaa idiin soo saaray adiga sharaftale ayaa daawanayay anigoo odayga soomaaliyeed ee idinla soo gudbinayay istalaala 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 I can keep repeating those words istalaala maanta oo dhan laakiin waxaan moodaa weli inaysan intaas ku fillayn get the talaalka get it today. Assalamu alaikum.